Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada janalka maalmaha. Maantana waxaan idin haynaa qiso cajiib ah. Waxaa jira nin dhalinyaro ah oo aad u wanaagsan. Muddo kadib waa uu guursaday. Guurkiisii kadib ilaa muddo 3 sano wax ubad ah alle ma uusan siinin. Ayaga oo xaaladaasi isaga sugan ayaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah walaalkiis iyo xaaskiisii uu qabay ayaa ku dhintay shil baabuur. Waxaana u joogay wiil 2 jir ah. Kadib wiilkii ayay soo qaateen, gurigooda ayayna keensadeen, wayna barbaariyeen. Sanad kadib alle wuxuu ku irsaaqay qoyskii wiil. Labadii wiil ayay wada koriyeen, barbaariyeen, tarbiyo wanaagsanna siiyeen. Sidoo kale waxay ku dadaaleen waxbarashadooda. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa casuumad aaday labadii waalid. Markii ay guriga ku soo laabteen ayaa waxa ay arkeen wiilkoodii yaraa oo ooynaya, dhanka iyo madaxana dhaawac halis ah uga yaal. Waxayna ogaadeen dhibkan in uu ku sameeyay wiilka uu dhalay adeerka dhintay. Caro darteed wiilkii weynaa ayay guriga ka buriyeen. Waxayna ku dhaheen naga tag, hana noo soo laaban, ayagoo u hiilinaya wiilkii ay dhaleen. Wiilkii aad ayuu u murugooday, wuuna iska baxay, isaga oo hoy ka dhigtay bannaanka iyo darbiyada. Muddo 3 cisho ah kadib ayaa wiilkii yaraa ay dhaleen waxa uu u baxay masjidka. Markaas ayaa waxa uu maqlay khadiibkii aqrinayay khudbada oo leh fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fil ardi wa tuqaddicuu arxaamakum. Markii uu ka soo laabtay masjidka ayaa waxa uu galay qolkiisii isaga oo aad u qaylinaya kuna dhawaaqaya, wiilka adeerkay dhalay aniga ayaa ka qaldan, dhibaatada isoo gaartayna si ula kac ah iguma uusan samayn. Markaa ayaa labadii waalid waxa ay garowsadeen in ay dib ugu soo celiyaan wiilka gurigiisa. Sidaas ayuuna ku soo noqday